Ibrahim Niyaas Nawaji wuxuu ku dhashay bariga Nigeria. Wuxuu u noolaa si caadi ah. Wuxuu ku barbaaray diinta Kirishtaanka, taasoo hadafkeedu ahaa diinta Islaamka inay ka nadiifiso qaaradda Afrika. Balse nasiib wanaag, qaaradda Afrika waxaa si baahsan ugu faafay diinta Islaamka, sida ay sheegeenba dadka cilmiga iyo aqoonta leh. Nawaji waxaa loo diyaariyey inuu noqdo daaci Kirishtaan ah, isagoo dhan walba laga dhisay, tarbiyo ahaan iyo waxbarid ahaanba. Wuxuu kormeere ka noqday kiniisadda bariga Afrika. Kiniisaddaana waxaa tabarucad u aruuriyey dadkii deganaa meesha. Waxay noqotay markas muhiim u ah cibaadada iyo dhaqanka Kirishtaanka. Nawaji wuxuu noqday mid laga taageero dhammaan mu'asasaadka iyo hay-adaha kiniisadda. Wuxuu bilaabay fulinta wax walba oo loo wakiisho. Tuuladiisii oo dhanna wuxuu ka dhigay Kirishtaan. Heer wuxuu gaaray inuu u gudbo tuulooyinka deriska la ah. Nawaji wuxuu ku soo islaamay gacanta nin Suufi ah, magaciisana wuxuu ka dhigtay Ibrahim Niyaas Nawaji. Maalin ayuu la kulmay nin Muslim ah oo ganacsade ahaa, asal ahaanna ka soo jeedo Shaam. Ninkaas wuxuu kula taliyey inuu noqdo daaci Islaami ah, siduu markii horeba u ahaa daaci Kirishtaan ah. Ibrahim wuxuu ninkii u sheegay inuusan haysan wax lacag ah. Ganacsadihii ayaa dhahay, qaado hantidayda oo ha ka dhigan caqabad ku hortaagan. Ibrahim Niyaas wuxuu bilaabay faafinta dacwada Islaamka ah, isagoo ka bilaabay dadkii uu markii horeba ka dhigay Kirishtaanka. Wuu ku guulaystay arrinkaas, gacantiisana waxaa ku soo islaamay 6,000 oo qof. Tuuladii oo dhanna wuxuu ka dhigay Muslim. Kadib ayuu ku fikiray inuu dhiso masaajid uu ka faafiyo dacwada Islaamka ah. Meelaha ayuu fiiriyey, kadibna wuxuu arkay kaniisaddii ay ka tageen dadkii islaamay. Kadib wuxuu go'aansaday inuu u beddelo masaajid. Waxaa duulaan ku soo qaaday saxafiyiintii Kirishtaanka ahaa. Arrinkana waxaa soo farageliyey xukuumaddii, oo Ibrahim ka joojisay shaqadiisii. Arrinkana waxaa loo gudbiyey maxkamaddii. Ibrahim isagoo difaacayo naftiisa ayuu dhahay, kiniisaddan waxaan ku dhisay hantidayda iyo hantida shacabka tuulada. Iyagaa xaq u leh oo xoolahooda xor u ah. Kiniisaddanna wax qiimo ah ma lahan, hadda way islaameen. Balse qaadigii maxkamadda ayaa wuxuu ku xukumay ganaax lacageed, kaas oo sababay in la dumiyo kiniisaddii fasax la'aan. Isagiina waxaa loo taxaabay xabsiga. Markii uu ka soo baxay xabsiga, wuxuu aruuriyey tabarucaad. Wuxuu dhisay masaajidkii uu ku riyoon jiray. Haddana wuxuu ku fikiray inuu dhiso markas ama xarun dacawi ah. Wuxuu aruuriyey lacag. Wuxuu dhagax dhigay isbitaal lagu daaweeyo Muslimiinta. Dadkii gacantiisa ku soo islaamay waxay gaareen 150,000. Kulligoodna waxay ka soo jeedeen hal qabiil oo Kirishtaan ah. Cadowgii Islaamka waxay isku dayeen inay horjoogsadaan dacwadaas qiimaha badan. Yuhuuddii caalamiga ahayd iyo Masiixiyiintii caalamiga ahaaba waxay isku dayeen inay celiyaan ninkan. Safaaraddii Yuhuudda ee Nigeria ayaa waxay u soo dirtay nin korka Muslimka ah balse xambaarsan sunta maska. Ninka wuxuu ogaaday daaciga inuu rabo lacag, wuxuuna ku yidhi, safaaradda Israa'iil waxay diyaar kula tahay inay ku siiso $55,000, balse waa inaad noqotaa Qaadiyaani. Ibrahim wuxuu yidhi, Alle ayaa garabkayga ah oo iiga filnaan doona wasaqdaas. Kadib isbahaysigaas waxay ku dhaqaaqeen inay burburiyaan dowladdii Nigeria. Nigeriyada bari waxay ka go'day wadajirkii, waxayna isku magacaawday Biafra. Kaasna wuxuu ahaa qorshe qaaradda Afrika loogu qaybinayay dowlado yaryar oo aan lahayn hanti iyo ciidanba. Dagaallo ayaa bilowday. Muslimiintii ayaa lagu khasbi rabay inay dagaalamaan iyagoo difaacayo dowladda cusub ee Biafra. Muslimiintii uu hogaaminayay Ibrahim ayaa iska diiday arrinkaas. Markaasna
Xukuumadda milatariga ee Biafra ayaa soo saartay amar ah in muslimiinta wax kasta ay leeyihiin laga wareejiyo haba ugu horreeyo masaajidkii iyo markaskii. Waxaa bilowday dabargoynta muslimiinta, siduu Alleba inoo sheegay: axasiba annaasu an yutrakuu an yaquuluu aamanaa wahum laa yuftanuun walaqad fatanna aladiina min qablihim falayaclamanna allahu aladiina sadaquu walayaclamanna alkaadibiin. Dadkuma waxay u maleeyaan in looga tegayo keliya inay dhahaan Alle iyo rasuulkiisaba waan rumaynay, iyagoo aan la imtixaamin. Dhab ahaanna waan imtixaanay kuwii ka horreeyey. Rabbina wuu muujin doonaa kuwa iimaankooda runta yahay iyo kuwa kaleba.